guddida diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa go'aamiyay in Maxamed Cabdilaahi Urcadde xogayihii guud ee xisbiga wadani uu yahay xogayaha sharciga ee xisbigaasi waxaana ay sheegeen in xubinnimadoodii xisbiga wali aanay lubin xubno kale oo uu hogaaminayo xogaya Urcadde go'aan ku mudaysan 15 bishan 8 ee 2018 oo guddidu ka soo saartay kulan ay isugu yimaadeen isla maalintii 15 ee bishan August oo ku beegan arbacadii toddobaadkii hore oo warbaahinta soo gaadhay sabtidii maanta ayaa waxa lagu yiri guddidu waxa ay go'aamisay in xilka qaadista xubnaha dacwadayaasha ay sharci noqonayso oo kaliya marka ay shirweyne isugu yimaadaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani guddidu waxay faraysaa baa lagu yiri qoraalka in xisbiga wadani uu shirweynihiisii golaha dhexe ku qabsado muddo 3 bilood ah oo ka bilaabmaysa 15 bisha 8 ee 2018 waxa kale oo la sheegay in ciddii aan ku qanacsanayn go'aanka guddidani ay rafcaan ka qaadan karto mid ka mid ah garyaqaanada u doodaya garabka uu hogaamiyo Maxamed Cabdilaahi Urcadde ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay soo saartay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka waxaana uu soo jeediyay in sharciga loo hogaansamo waxaan ka mid ahaa horta saddexdii qareen ee u doodayay garabkii ka cabanayay gudoomiyaha xisbiga kadib waxaan u gudbinay dacwad guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda taariikhdu markay ahayd 30 bisha 2018 kadib sidii sharciga ahayd iyagana waa loo diray waana ka soo jawaabeen garabka kale Cabdiraxmaan Ciise hogaaminaya waxaana jawaab celintii keeneen 6 bishii 2018 kadib guddiga go'aan ka soo saartay go'aankaasi aad arkaysaan oo ka kooban 3 qodob ka kooban taasoo ay ku sheegeen ay ideen dacwadeedii isla markaana ay ku sheegeen xilka qaadistii gudoomiye Cabdiraxmaan Ciise oo xilka ka qaaday xogayaha guud iyo xubno kale oo xisbiga kamid ah in sharciga waafaqsaneen go'aanka markaad eegto xogayihii guud sidiisii buu jiraa Maxamed Cabdilaahi Urcadde sharciyan marka horena wadaan sharci waafaqsaneen baa laga qaaday imigo dacwadana go'aankan soo baxayna waa sharci waxaanu ka mid noqon doonaa xubnaha isugu yeeraysa shirweynaha qabanaysa waana mas'uuliyiinta ururka go'aankan ayaa soo baxay waqti uu wadanka ka maqan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro welina ma jiraan wax war ah oo xisbiga wadani uu ka soo saaray arintani